marwo faadumo Abdi jexow oo ah wakiilka dumarka ismaamulka wajeer ayaa u adkeysan waayay koronto la'aanta ka jirto magaalada wajeer waxayna su'aalo ku garacday wasiirka tamarta xilli ay ka hadlaysay baarlamaanka sare ee Kenya. marwada ayaa su'aashay wasiirka in uu cadeeyo sababta ka dambeysay in korontada wajeer ay noqoto mid mar walba maqan iyo sababaha u qorshaysan si loo gudbo arrinkaasi. I have a question to the Cabinet Secretary for Energy and Petroleum regarding the power blackouts of Wajeer. Could the Cabinet Secretary explain the causes of the frequent power blackouts and outages in Wajeer County, detailing strategies that the Ministry has put in place to curb the said incidents? marwada ayaa sidoo kale su'aashay wasiirka in farsamo yaqaano la geyn karo wajeer si arrinkaasi looga kaaftoomo maadaama isbitaaladu ay dhibaataysan yihiin. Could the Cabinet Secretary provide the measures that the Ministry has put in place to ensure prompt deployment of Kenya Power and Lighting Company technicians to address incidents of power blackouts and outages in Wajeer County to minimize its negative effect on health facilities and businesses in the area? ugu dambeyntii marwo faadumo jexow ayaa weydiisay wasiirka tamarta ma laga yaabaa in wasaaraddu ay qeexdo tallaabooyinka u qorshaysan si magaalada wajeer looga xiro national grid. 3. Could the Cabinet Secretary outline the measures put in place by the Ministry to either fast-track connection of Wajeer County to the national grid or enhance the capacity of the off-grid plant? Thank you, Mr. Speaker. Thank you.